waanada baarlamaanka labada aqal guddoonka gobolka banaadir halkan waxaa fadhiya ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cadde soo dhawow Nuur Cadde saraakiisha ciidamada qalabka sida diblomaasiyiinta bulshada iyo martisharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waxaa sharaf iyo farxad ii ah inaan caawa halkan aan idinku soo dhoweeyo idina soo gudbiyo hambalyada 1 Luulyo 2017 gaar ahaan dadkii gobonnimada u soo halgamay wixii ka nool iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin ugu soo dirayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo saacaddan aan halkan ku dabaaldegayno ay naftoodii ay u hurayaan dhiiggoodan u daadinayaan sidii ay nabadgelyada iyo xornimada ay ugu difaaci lahaayeen ama u difaaci lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sidaad la socotaan meelo kala duwan yaa dagaallo ka socdaan shabeellada dhexe waxaan rajaynaynaa inay halkaas guulo ka soo hooyaan ciidamada qalabka sida waxaa iyana munaasabaddan 1 Luulyo mahad iyo bogaadin aan u dirayaa ciidamada African Union AMISOM oo kala ah dalalka Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa 57 guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo xora 1 Luulyo 1960 waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee Soomaaliyeed oo midna Ingiriis gumaysanayay midna Talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneed ee ummadda Soomaaliyeed ee gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halgan waqti dheer soo socday oo ummad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale ay naftoodii iyo maalkoodii ay u horeen marihii halgankaas lagu keenay gobonnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo talo xumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan ugu koobi karin yaan mutaysannay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qolo iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta 1 Luulyo 2017 waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 57 guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeena walaalayaal munaasabaddan 57 guurada waxay tahay mid ka dhalatay haddii aynan qiimeyn dadkii halganka soo maray ama u soo halgamay ama u soo dhintay aynan qiimeyn ama aynan u dabaaldegin dadkaas oo runtii soo halgamay gobonnimadii midnimada aan hadda haysanana keenay kuwaas badankoodu maantase ay mootan yihiin waxay ka koobnaayeen rag iyo dumar miyi iyo magaalo deegaan kasta oo Soomaaliyeed ka yimid waxaan halgankaas hogaaminayay xisbigii SYL oo aan caawo dhan ka hadlaynay ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kooban 13 wiil
maalintii taariikhdu ahayd 15 May sanadkii 1943 markaas waxay noqonaysaa haddii aynan xusin abaalka dhac haddii qaranka aan maanta haysanno ama munaasabaddan aan maanta u dabaaldegayno waxay mudan yihiin inaan sheegno ciddii ahaayeen keliya ma aha inay siyaasiyiin ahaayeen waxaan rabaa inaan soo xigto buug dhowaan soo baxay oo la qoray oo la magac baxay xasuusta kuwii xabaal galay wuxuu ku saabsan yahay kaalintii doorkii hal abuurnimo iyo hobollada keliya aysan ahayn aqoon-yahano iyo hoggaamiyaal waaweyn yaa lagu xusayaa buuggaas ma aha buugga keliya oo dadkii taariikhda Soomaaliya ku lahaa oo soo halgamay laga qoray ma aha waxaa jira buug la yiraahdo maamuladii iyo madaxdii soo martay Soomaaliya buuggaasna waxaa qoray qoraagii taqaaneen Cabdulcasiis Ali Ibrahim laakiin qoraalkan ama buuggan aan sheegay oo ahaa xusuustii kuwii xabaasha galay macnaheedu waxay tahay waa dad kulligood bee adduunka ilaahay ka awsaday marka waxay nagu leeyihiin waajib inaan sheegno cidday yihiin qof walba oo dalkan wax u soo qabtay ama contribution u sameeyey waxay mudan yihiin inaan sheegno buuggan wuxuu magacaabayaa shakhsiyaad 48 qof ah dadkaas buuggaas ku jira dhammaantood waxay geeriyoodeen xilligii burburka iyo colaadda sokeeye waa dadkii halgamayaasha ahaa oo hobollada ahaa oo abwaanada lahaa oo aqoon-yahanada lahaa iyo siyaasiyiintii u soo joogay xornimadii markaan qaadanaynay halgankii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed ay soo mareen dadkaasi waxay dhinteen iyagoo niyad jabsan ayay dhinteen dareemaya hanjab iyo gudnimo yay dhinteen xaqiiqiyan 48daas qof oo buuggaas lagu maaragtay lagu sheegay waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 1967 iyo 69kii oo ay tahay inaan xusno oo la oran jiray Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen Allah u naxariisto waxaa kaloo buuggaas si weyn u maamuusaya madaxweynayaashii hore ama madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Allah u naxariisto Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo ra'iisul wasaarihii hore Allah u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen walaalayaal waxaa intaas dheer siyaasiyiin kaliya ma aha buuggaas wuxuu xusayaa hal abuurayaashii iyo abwaanadii waaweynaa ay ka mid ahaayeen Cabdulaahi Qarshe raalli ahaada Cabdulaahi Qarshe Allah u naxariisto waxaan intaas magacyadan u sheegayaa waxay tahay waa dadka aan halkan maanta ku fadhino dad badan oo halkan fadhiyana aysan aqoon marka inaan ku soo celin magacyadooda oo aan baranno oo mid walba wax laga qoro waa naga mudan yihiin Cabdulqaadir Xirsi Yamyam Cabdi Maxamed Amiin Cabdullah Raage Xasan Sheekh Muumin Cabdi Bashiir Indhabuur Dr. Nuur Raafi Cabdullaahi Macalin Dhoodaan Maxamuud Tukaale Cusmaan Maxamed Cali Kaariye Axmed Nuur Yuusuf Xuseen oo Faarax Cumar Dhuule Sahl Macalin Ciise Axmed Sheekh Jaamac Maxamed Sulaymaan Tubeec iyo Allah u naxariistee xildhibaanadii Saada Cali
warsame oo aad og tihiin halkii ay dhagarqabayaashu ku dileen buuggana si fiican oo faahfaahsan ayuu uga hadlayaa waxaan rabnaa inaan xusno allah u naxariistee faadimo qaasim hilowle xaliimo khaliif magool maryan cali muudey iyo xaawa jibriil dadkaasi waa dadkii soomaaliya runtii horumarkeedii iyo abaabulkeedii iyo kicinteedii iyo soomaalinimadeedii iyo midnimadeedii qayb weyn ka qaatay marka inaan xasuusnaanno marxaladahan oo kale iyo munaasabadahan oo kale waa nagu leeyihiin sidoo kale waxaa xasuus mudan aqoon-yahanadii oo iyaga naftigooda buugaag badan ka qoray xorriyaddii iyo taariikhdii soomaaliyeed waxaa ugu horreeya xuseen sheekh axmed kadare shiro jaamac axmed maxamed xaashi dhamac yuusuf xaaji aadan doctor maxamed aadan sheikh shariif saalax axmed aw jaamac cumar ciise doctor cumar cusmaan raabi brofesor ibraahim maxamuud abyan doctor axmed ashkir bootaan iyo qaar kale oo badan allah u naxariisto kulligood walaalayaal intaas oo dhan waxaan u sheegaynaa waxay tahay waxaa weeye qof walbo halkan fadhiya oo wanaag sameeya kuwa naga dambeeya inay wax fiican ka qoraan inay kuwa dambe ay magacaabaan ay xusaan intaas keliya ku dayn mayno waxaan samayn doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo dhismaha dowladda jidadka waxaan ku magacaabaynaa dadkii contribution